أهلا وسهلا مدن مدحوينه وعبد الرشيد محمد حاشي وكسعدا فقان أرق بريا ETN آدي هذا يانو كوغو مهد علينا ورئيسيغان غاركا يا سيسي تلفزيونka ETN marka hore mudane madaxweyne waxaan jeclahay bal inaan wax ka weydiiyo socdaalkaagan aad ku timid dalkan Kenya muxuu muraadkiisu ahaa sida ka warhaysaan Soomaaliya waa ay burburtay 20 sano ka hor inkastoo hadii ay jiraan xukuumado mid dhexe oo xamar hadda joogta iyo xukuumado kale oo gobolada waqooyi Puntland iyo Soomaaliland ay jiraan sidaas darteed xiriirka caalamiga ah oo Soomaaliya ay la leedahay dunida inteeda kale dadka ka wakiilka ah oo qaabilsan kulli waxay degan yihiin meeshaan intooda badan ama iyaga oo dhanba ha ahaadeen kuwa wakiilada dawladaha uga ah Soomaaliya qaabilsan ama ha ahaadeen kuwa hawlaha bini'aadamada ka wada oo sida qaramada midoobay iyo qolooyinkan loo yaqaan NGO international NGO halka wada degan yihiin marka laga maarmaan weeye markii muddo la joogaba inaan halkaan nimaadno si aan uga wada hadalno waxyaalaha aanu ama tabanayno ama aan u baahanahay inaanu isweydaarsano ama ka wada hadalno inaan halkaan nimaadno oo aanu la kulanno hay'adahaas waa laga maarmaan waana sameynay 2 jeer hore hadii halkii sano oo labadii bilood aan meesha joogno markan si gaar ah la kulantay waxaan la kulanay xafiiska ninka wakiilka ka UN ka Secretary General ka la kulanay hay'adaha caalamiga oo UN ka waan la kulanay coordinator-keeda waxaan la kulanay safiirro badan oo ay ka mid yihiin safiirka dawladda Mareykanka halka uu fadhiya kan Faransiiska kan Talyaaniga EU-da ninka uu fadhiya goobta ma la kulanay haddii aan si gaar ah u dul istaagno qolyaha Mareykanka ee halkan ku kulanteen maxaad ka wada hadasheen waxyaalo badan baa ka dhacay dawladda Mareykanka dawladda maanta adduunka ugu xoog badan Soomaaliyana wax badan bay ku bixisaa deganaanshaheeda hadda ka horna markii Soomaaliya burburtay 1990 labadii aakhirkiisii ciidamadii ugu badnaayay oo yimi bay lahayd ilaa hadeerna aad bay u danaynaysaa anaga laftiga iyagu xiriir iyo wada shaqayn baan leenahay sanadkii dhaweydna siyaaranba ku tagnay oo nala ka casumay oo aanu ka jeedinay hadal Congress-ka Mareykanka aanan la aragnay xafiisyadoodii siyaasadda oo dhan 2 jeer oo kalena waa nimi halka waa ku aragnay markana waa 3 wax badan baa naga dhaxeeya oo aan wada shaqayna markan jalla madaxweyne waxa nagu maqaalaa inaad aad uga wada hadasheen amniga Portland oo kale aad si gaar ah Mareykanka uga wada hadasheen marar badanna sida aad noo sheegtayba ilaa safar Mareykanka aad u gashay oo ku saabsan hay'adda BIS-ta iyo muran isoo kala dhex galay arinta noocaas hadii aad ka wada hadasheen halkay saldhigata waxa shiday hadda ma jiraan hay'addaas way hay'ad Mareykanku taageero horaan uga wada hadalay in la nidaamiyo la regulate gareeyo waana nidaaminay waana regulate gareynay hay'ad waxa weeye qaran oo dawladdu ay maamusho oo ay leedahay oo la shaqeynaya hay'adaha kale oo amniga dawladda Mareykanka way ku mahadsan yihiin inay taageeraan wax dhibaato ahayna ma jiraan wixii aad maqasheen dadku ay meelaha la warwareegayeen waxba kama jiraan waan isku afkaranay gabi ahaanba sidii loo wada shaqeyn lahaa mustaqbalka anigoo safarkaaga su'aalaha inta kaga baxaya markii Ingiriiska aad joogtay safarka ku tagtay si diiran baa lagu soo dhaweeyay Mareykanka sidaas leeg waxaad la kulmaysay mar walba oo hadalna aad u jeedinaysay shacabka Soomaalida ay jaaliyadaha ku ah halka maxaa dhacay shacabka reer Kenya Soomaalida ay jaaliyada marnaba ay codkaaga u maqli waayeen hadii shacabka waa wada kulanaa iyagoo qaybooyin kala ah oo odayaal community-ooyinka dad madax ka ah muxuu ahaade community-ga soo qaxay dad badan baa siyaasiyiin dadka halkan Soomaalida oo ka midka Kenyaanka laftigooda waan kulanaa waxay ku xiran tahay dadku say u danaynayaan halkaas Soomaaliya halka aad ugu dhowdahan u maleynayaayo dadka waxba kuma kala qarsoon qaxootigii baa jooga maalinba waa la yimaadayo way ka dheregsan yihiin laakiin dhulkaas aad baa wax loo xiiseynayay in Soomaaliya ay lugaheeda isku taagto cidii ugu horeysay oo tagtay oo la kulantana waanu ahayn intii burburku dhacay 20 sano oo mathlaysa meel ka mid ah Soomaaliya waxaana aad iyo aad
gaar ahaan annaga noo soo dhaweynayay dadka reer Puntland oo waqooyiga Amerikana u badan Ingiriiskana si xoog la u jooga inkastoo aanan kala soocayn inaan la hadalno dadka Soomaaliyeed oo dhan oo xafladaha la ku soo dhaweeyay ay wada joogeen haba u kala badnaadeene annaguna hadaanu Puntland nahay diimaha dad Soomaali ka go'ay waxaanu danaynaynaa midnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka Soomaaliya oo dhan waxaana taa daliil u ah dadka aanu ku soo dhaweynay Puntland oo nala qaybsaday xooga yar oo aan meesha ku haysano oo nabadgelyada iyo kheyraadka iyaga intaba iyo shaqooyin ka helida intaba marka inaanu nahay dad Soomaali u taagan aan isu haysano inaanu mustaqbalkan wax weyn ka tarayno hadii lahayd وهذا قاعد بعض ما زتها مدحويني هدي ورئيسك ku sii socdo socdaalkaaga hadda Ethiopia ayaa ka timid oo muddo 7 ku dhow aad joogtay daanay ka badnayd dhaqdhaqaaq badan baad samaysay intii aad Ethiopia joogtay waxaad la kulantay madaxweynaha dowladda federaalka ee meel gaarka halkaasna afgarad heshiis hore u jiray ayaad ku saxeexatay seed isku hesheen adiga iyo madaxweynuhu maxaad si ku wada hadashay أنا مدحوينه بريجي هلكن 2009 بشي نوفمبر أرين أنا مركز إذا على أي ميديا كشجني وقضب هل كلية ها عن خلاف كتيري كبعض وكوضع هذا اللي حرير جوك تانا تيف جوالها إنه رئيس وزراء بانو ستوس أو حريرها مدحوينها لفت جيسة بشي فبراير تلفون وكوضع هذا اللي وأنا وضع هذا اللي هاي أنا وحوي سوق خلاف كرا لو إنه سياسيين عن هاي ومسؤول كأحدث كصوماليات سيدا أي وحلو وضوء سيدا وحلا قد يجي كرو حوالي سوق خلاف كرا جارهان بدلان وهاي دير هذا قبتاي ومدوين كي بدناي ودولة صومال أي صور سنايد سيدا دول ككر الله عمرين الله ما عمرين وأنا ماشي ما أنت صومالي أوروريسي أما هذين كوي واجه هالكا دجناي وكونفور مدة deegaamadaas ah u guuray oo dib ugu noqday ama ahaadeen kuwa aan weligood tagin oo gobolada kale Soomaaliya ka yimaada marka khilaaf laba siyaasi way dhici karaan laakiin waxaan marna la isku khilaafi karin waa maslaxada Soomaaliyeed oo dhaxtaala oo nin walba dhinaciisa oo ka ummadda Soomaaliyeed ay kale naga aqbalayn taan baan isu sheegnay waxaan kaloo ka wada hadalay heshiis gaalkacyo in la hirgeliyo madaxweynuhuna waa aqbalay heshiiska la hirgeliyo oo hadda ilaa hadeer ka hor aan habaaska laga jafin أن حكومة TFG قاعد هذا لجوا ريجين هذا عالمي قاعد لو شيء إن هالشيء كاس لهير قليو أدمان سواف كرني هذا وده أرج يقول ريبوها وحي كده مينا هو أنا والحرير دونا وأنا كوا شغالين دونا مصلحة الصومالية. إن حكنا سقوط ما دينا سفارة الصومالية كوكلانتين هذه هي مدحوينه سدك تدو سفر كاس كل عاي كان هنا لفتي سماها هي مدخل شيء سنة السبب سيدان كور قبو مركاميا نوشي كرتا waxaan meesha ka baxay markaa isku afkarin weedeen waqtigan wallahi horta meel walba lama findicili karo waxa jiray heshiiska gaalkacyo oo 23 August sanadkii dhow la saxeexay qodob aanu islahayn mudane Umar Cabdirashiid waxa kaga haboon in madaxweynaha laftigiisa Sheekh Shariif aad iska afkarataan qodobkaas waxa weeye horumarinta mashaariicda dhaqaale iyo bulsho oo Puntland ay u baahan tahay in bacdama meesha kaliya degan oo maanta Soomaali ay wada joogto oo ogol oo ah hooyadii qaabka dhismeedka federaalka in waqtigan baahida loo qabo oo madaxweynuhu oran karayo hay'adaha caalamiga iyo dawladaha deeqda bixiya mashaariicdaas oo nin walba og yahay afka lagu dhufto ah aeroboorada magaalooyinka waaweyn iyo ballaarinta dekedda iyo isbitaalada caamka in la oran karayo war cidii tabar haysa oo dhaqaale ku bixin ka dhamaanta wuxuu humanitarian kaliya maahe baahida Soomaaliya waa kala bedelantay meelna humanitarian ka looga baahan yahay waa koonfurta dadka barakacay oo xamar iyo koonfurta ka barakacay meelna waxa looga baahan yahay horumarin mashaariic dhaqaale in madaxweynuhu si door weyn uga qaato arintaas aan ka filaynay taan ba wax ka jireen iyadana waxaan filaynaa in laga gudbi doono hadii Allah idmo markan miyay jirtaan xaalin dhinacay Ethiopia may anaga toos soo aragnay waaga aad baad mahadsantahay madaxweyne anagoo jecel in mar walba waraysiga laakiin dawladda Ethiopia raalli ka ahay taas heshiiska inaad gaadhaan inaanu is aragno oo arinta Soomaaliya aan ku kala tagin
raalli ka ahay. laakiin safarkiinu kadu ah si degdeg ah soo aragteen ballan hore ma jirin. Annaga meesha siyaaro u joognay isaguna meeshuu yimi laakiin kulley haddee in la is arko way iska midna haddaan telefoon ku wada hadalay hore wada xiriir jiray anytime aan is arki karay oo nasiibku taas ku noqday inaan isku aragno. waxyaabaha kale Ethiopia inta aad joogtay aad ku guuleysatay waxa weeye inaad la kulantid dawladda Ethiopia maxaad ka wada hadasheen dawladda Ethiopia? dawladda Ethiopia dad iyo xuduud iyo iskaashi nabadgelyo inta waa naga dhaxaya wada ogtihiin meelaha shidadu ka socoto annaga iyo iyagaba waa nagu dhowday xuduudiyadeedii ku dhowdahay awal baanuna horay ilaa intii Puntland jirtayba dawladda Ethiopia oo lahayn xiriirka wada shaqeyn nabadgelyada gobolka oo na wada khuseeya gaar ahaan inayan ku soo fidin xuduudka Puntland iyo kan Ethiopia ay la leedahay Soomaaliya goobta annagu aan kaga naalno iyo kuwa la deriska gobolada dhexe shidooyinka ka jira koonfur arrimahaas bay u badan yihiin iyo ganacsiga oo aad u ballaaran naga dhaxeeya Puntland iyo Ethiopia ka dhaxeeya bacdama dadku isaga gudbo xuduudka labada dhinac iyo xooluhuba in kaasna la sii ballaariyo horena waa uga hadalay markaan is aragnay haddana waa doonaynaa waxaan kaloo leenahay ka hadalay in la isku xiro labada gobol labada dal Ethiopia iyo Soomaaliya gaar ahaan Puntland in isaga gooshaan diyaarado macdamaha hadeer Puntland ay haysato dhibaato xagga cirka oo wadamada Carabta ay ka imaan jireen laga xayiray dadka iyaga dibadda jira oo aan ka maarmin degaankooda inay aroorahooda dib ugu soo ceshaan ama soo siyaartaan diyaaradihii jidka ah iyo airport laami ay ku deegi karayaan lahayn inaan dhinaca Ethiopia isticmaalno arrimahaasna waa ka hadlay iskaashi dhaqaale iyo mid amni bay badanaa ku saabsan oo khasab ku ah in deganaanshaha nooca geeska Afrika in laga wada shaqeeyo qodobadan dambe ee dhaqaalaha ku salaysan waa kuwa muhiim idin ah marka goormaad is leedahay oo kale in intifaacsigoodu uu bilaami karaa hadeerba waa socdaa ilaa intii burburka Soomaaliya ku dhacay Puntland iyo Ethiopia xiriirkaas dhaqaale oo isdhaafsiga ganacsiga gedisleyga ama trade-ka loo yaqaan waa socday laakiin hadda waa informal baa hadda formal baan ka dhigay rasmi baan ka dhigay waagaag madaxweyne waxaa jira warbixin Soomaalidu meel walba ay joogto kaga qeyraalsiisay oo UN-ka qaramada midoobay loo gudbiyay laanta ammaanka waxaa jira qodobka saddexaad ee warbixintaas aad waxa looga hadlayaa barcadbadeedna waxaa lagu mataaniyay Puntland iyo bartamaha Soomaaliya magacaaga shakhsiga ahina wuu ku soo baxay warbixinta maxaad kaga warcelinaysaa in tilmaamay hada sarsare ee maamul goboleedka Puntland oo adigu aad ka mid tahay in aad ka baayac mushritaan waxyaabaha ay soo saaraan barcadbadeed oo warbixinta ku sugan warbixin xun oo eedayna oo ceebayna oo ula jeeda siyaasadeed leeyahay laakiin aniga marna la iguma tilmaamay barcadbadeed inaan ka mushtaro ereyga ugu xun oo igu dhawaa wuxuu ahaa in la yiri dawladdaas waxay noqotay dawlad dambiyada la galo caan ku ah marka magacayga meesha oo kaga yiilay waxaan leeyahay waan condemn garaynaa warbixintaas waan ceebaynaynaa cidda qortayna waxa weeye dambiilayaal waliba aad iyo aad loogu yaqaano oo aan magacyadooda aan hataa garan karno hay'adaha kale hore uga shaqeyn jiray hay'adan International Monitoring Group-ka ah oo ka shaqeeya inay Puntland ceeb u raacso say dad kale iyo meelo kale ay ugu helaan cududaar ay markaas wax ay doonayaan oo siyaasadeed ay ugu dhiirigeliyaan waa la garan karaa waan malay hadalkaas magacoodan waa la yaqaanaa rag iga horeeya ka hadlay annaguna press release ka bixinay waa ka hadalay waxa weeye hadal fadhi ku dirir ninkii ku tilmaamay baa ugu fiicnaa description oo ku sheegay iyo goob lagu qayilo wax lagu yiri hay'adaas cid ka socota ay Puntland ma imaan waana arrin cidii aan kala hadalnayna ay garoosatay inay idab darro ahayd iyo aflagaadho iyo ceebays dembi ah laga galay iyo waxaan loo yaqaan character assassination Puntland iyo madaxdeeda lagu sameeyay hay'ad weligood ma imaan Puntland ma ay ogaan waxa adduunku ka qoro oo meediyada caalamka waliba qaar ahaan westernka iyo ay ka qoraan iyo nimanka la yiraahdo Jazeera ay dhawaan ka publish gareeyeen oo ugu dambeeyay ABC-da Mareykanka ay yimaadeen waxba kama eegin
waxay noqotay wixii qoray ay ku ceeboobeen annaguna aanu leenahay waxaan xishoonayn baa tihiin oo xumaan u bareeray taariikhdan in sheegi doonta annaguna waxaas ilaahay nooma kasin meesha keliya oo abaal ku leh laguna ammaano waxna ka qabatay burcadbadeeda baanu nahay oo 300 qof ku dhawaad ay ku xiran yihiin maanta meel kale oo cid ka haysta oo maanta oran ka waxaasaanu qabanay ma jirto xiriir wada shaqayneedna leh dawladaha waaweyn oo burcadbadeeda aanu iska siyaasadda nahay inaan la bixin waxaan loo yaqaano madax furashada ama ramsan baymen waxaa jira intii adigu aad madaxda ka ahayd Puntland in olole badan aad u gashay oo heer caalami lagu tilmaami karo in burcadbadeeda lala dagaalamo haddana waxaa jira warar laftaadu aadan mooganayn oo marka burcadbadeeda la soo qaadaba dawladdaada lagu tuumayo mar walba burcadbadeed haddana warbixinta aynu ku aragnay marka arrinta noocaas oo kale idinku daraasad ka sameeyay calaaqada la sheegaya oo warkan marka hore ka bilaabo waxaa jira shakhsiyaad waxaa jira wax la yiraahdo cid u raadi magac adoo cid kale ceebaynaya halkaas ku xisaabanta oo la jeedo siyaasadeed oo Puntland loo raadinayo magac xumo si meel kale magac loogu siiyo oo ayaan markaas wax qabada oo arrinta ku saabsan ayaan ka imaan mana jirto wax sheegi kara ama proof oo cadeyn kara xataa ani maamulada iga horeeyay in maamulka Puntland oo meelna kaga lug lahaa arrinta meel lagala diro aan Puntland hayna ma jirto haddana waxaa marag ah boqolkiiba 70 in qiimeynta lagu sameeyay ay tahay inay burcadbadeeda wax ugaarsigeedii oo Puntland xeebteeda hore hoos uga dhacay iyadoo ay tahay meesha ay maraan maraakiibta adduunka annaga ay hadda noqotay meelaha lagu tilmaamo koonfurta iyada walaba marka qaarkood ay soo dhuuntaan oo maraakiibtu meeshaas ay marto Cabo Gardafi u dhow ay halka ka ugaarsadaan dabeedna la cararaan hadeer shalay iyo daraadba iyo tii koreysay dagaal baa lagaga qaaday xeebta Baargaal oo ay markab ku qabsadeen in badan waa laga qabtay gaadiidkana waa laga qabtay ciidankii Puntland baana ka hawlgalay oo gacan ku haya waxaan wax badan laga sheegay idaacadaha iyo meediyada waliba khusuusan ETN-ka laga sheegay oo laga muujiyay oo idinka laftigiina aad ogteen laftigiina xilba in ka saaran wixii aad hore u duubteen inaad soo muujistaan sida Al Jazeera oo kale anu garan maayo waxa inay diidan inaad taasoo kale ka hadashaan oo aad soo saardaan backgroundkii inta doonyood iyo inta qalab iyo inta matooro iyo inta jaranjaro iyo inta muxuu ahaay dad laga qabtay iyo inta hub laga qabtay oo wali muxuu ahaay sidii macrad ahaan u yaala magaalada Boosaaso u yaala idinka laftigeena mas'uuliyadiina waxa ila tahay inaad hoos uga dhacdeen wixii aad hore u duubteen inaad adduunyada u tustaan mar labaad inaad muujistaan markii waxaas kale ay soo baxaan waxa ila tahay mas'uuliyad ay leedahay meediyadiina magaceedana ku kordhi lahaa inay tahay wixii hore u ogeydeen inaad sheegtaan taam iska eegtaan idinku marna aad baad maasatay madaxweyne laba toddobaad baad ka soo jeedaa caasimadda Puntland ee Garowe waad ka soo maqan tahay marka waxaan jeclahay bilna ku weydiiyo see Puntland lagu ahaa hadda Puntland waa nabad dadkeeduna waa midaysan yahay waxaanu ku guuleysanay inaanu meel kasta dhibaato ka jiro dadka isu keenno midayno haddii ay ahayd degaamo colaadi ka dhaxaysay oo dadka Soomaaliya iska taqaana carshinta iyo daaqa iyo dhibaatooyin siyaasadeed oo mararka qaarkood maamulada ka yimaada dhexgeliyaan inay dagaal ka dhacaan dad badan oo dhibaatooyinkaas ay kala haysteen waanu nabadaynay haday noqoto Mudug haday noqoto gobolka Bari iyo meelo kaleba iyo gobolka Sanaag intaba waxaanu anagu ku guuleysanay inaanan dadka halkii sida ay lagu eedeyn jiray weligeed wixii wax maamushaba inay dadka qaybiso qolana garabka saadho qolana ay daciifiso inaanu dadka miisaan aan u wada sameeyno oo aanu waxaan la yiraahdo bal waxa aynu wadaagno oo ninka ma xigo inaanu meesha aanu muujino oo ummadoo dhan aanu midayno oo inaan maamulka anagu aanu hayno mid anagu aan leenahay oo salahayn mid dadku dhan leeyahay aad faa'iidadiisa iyo deganaanshihiisa iyo horumarkiisa iyo mustaqbalkaba ninkii la doortaa ama cidii maamulka marka haysta sidii kuwii hore u tageen bay midina tagayaan waxa haraya waxa weeye dadka iyo dalka iyo wixii ay ka dheefaan marka maamulka jira arintaas Puntland way isu garowsan tahay heshiis bayna ka tahay dadkeeda iyo dadweynaheeda iyo dawladeeda iyo hay'adaheedu waa ku midaysan yihiin hawl fiican baan ka qabanay aad bayna u fiican tahay waxaan rajaynayaa halka in hore u sii socoto inkastoo ay kooban tahay intii hadda adigu caynaanka madaxtooyaha haysay
maxaa tilmaami kartaa horumarada Puntland ay ku tallaabsatay oo la magacaabi karo? waxaan tilmaami karaa lama wada koobi karo marka u horeeya inaanu dalkii miisaaniyadiisa fariisinay ilaa hadda waxaanu joognaa 1 sano iyo 3 bilood iyo dheeraad baanu joognaa inaan mushaarooyinkii bixinay oo ayan jirin mushaar waayatiin awal hore u dhici jiray hadda jirin waxaan kaloo sheegi karaa in ciidamadii oo kala burbursanaa aan ururinay oo aanu isu keennay waxaan kaloo sheegi karaa inay adeeg dalka ka qaxay oo ka baxay aanu soo celinay waxaan kaloo sheegi karaa inaan burcadbadeedii la diriray oo 2 waji kula diriray mid xagga ciidamada amniga qawsha ka qabteen iyo mid xagga community-ga oo ay naga taageereen culimaadudiinka iyo madax dhaqameedyadu intaba dad badan la dhaqan celiyay oo qaar badan lagu horjoogsaday qoritaankii ummadda loo sheegay diiniyan iyo dhaqan ahaanba dhibaatada ay u leedahay dadkeena ilaa ay gaareen qoysaskii ilmahoodii ka qayb galay inayan guriga ka soo gelin oo gaadiidkooda iyo kharashkooda iyo waxba ayan isticmaalin oo ay yiraahdeen wax xaraan weeye inaanu gaarsiinay ilaa heer ah inaan gabdhaha ayan guursan oo gabdhuhu ka cararaan inaanu gaarsiinay in dad badni markaas uga joogsaday dad badnina oo samaysmay xaggaas inaanu wax qurun oo uraaya dadka uga dhignay ayna u garteen meelii lagu tilmaami jirayna haddii ay ka wada carareen arrimahaas oo dhan iyo kuwa ka sii badan oo aanan wada koobi karin oo ama xagga maamulka ama xagga mujtamaca ama xagga tacliintii oo la mideeyey oo curriculum-kii loo wada sameeyey waxaasoo dhan inaanu qayb weyn ka qaadanay inaanu mashaariicdii horumarineed oo dalka ka jirtay dib u bilaabid ku samaynay oo wixii aan qaban karno qabyaha dhammaystiray wixii aanu bilaabi karona ay noo qorshaysan yihiin inaan bilowno haddii alla idmo aan hay'ada ku soo jiidayno iyo wixii anagu aan qaban karno xiriir badan oo caalamiyan aan samaynay si aan ugu soo jiidno attentionka caalamka meeshaan inay nabad tahay dad badan ay yimaadeen ayna ka garaabeen inay tahay meel mudan in la maalgashado waxna laga qabto horumarna gaari kara inay yihiin dadkeeduna u bisil yahay dadkii Soomaaliyeedna laga wada helay ay dhan yihiin hadda waxaas oo dhan waxa ila tahay wax la wada koobi karayo maahay rag baa meesha inii jireen bal waxay soo waraban hal arko idinkuna wixii aad ogtihiin hadda baahiye oo adduunyada gaarsiga xilina saaran weey insha Allah dhawaan waxaad samayseen isku shaandhayn dhinaca wasaaradaha oo kale maxay taasi markaa horumar keentay isbedelka aad samayseen waxa weyn annagu waxaan soo marnay sanadkii waxaan u bixinay sanadkii hore sanadkii tijaabada qof walba waxaa loo yaqaan performance wax qabadkiisa lagu qiimeynayay inna meesha male ama ha ahaado wasiir ama ha ahaado agaasime ama ha ahaado cid kastoo meel ama hay'ad madax ka ah qofkii sanadkii hore loo bogay hawshiisa inuu ka soo baxay oo dadka u hayay xilkana hadda waa sii jooga meesha waa joogaya nin wali waa tegaya wax muddo kooban loo doortay waxa ka jira aniga iyo ninka madaxweynaha iyo xubnaha golaha baarlamaanka dadka inta kale waxa weeye performance-gooda lagu qiimeynayay waxtarkooda ciddii waxtar lena hadda dadkuna waa arkaya waa qiimeynaya annaguna waa qiimeynaynaa ciddii markaa meesha aan ku habboonan iyadoon wax gaar ah oo eeda laga gelin dee qof kale wax qabanaya meesha u banaynaysaa taasay ku beeskaraysnayd sanadkaanna waxaanu nidhahnaa waa sanadkii isbedelka sanadkii hore sanadkii tijaabadu ahaa dee isbedelku waa iska soconayaa waana ogtahay haddii isbedel samaysma eedaa iska samaysma eeduhu micno samayn mayaan sababtu waxa weeye wax wanaagsan ninkii sameeyaaba eed waa la kulmayaa isbedelka eeduu keena diyaar baan u nahay waana u bareeray cidna eed kaga geli mayno shakhsiyada ku isugu ka imid laakiin waxaan u danaynaa aan eegaynaa waa dadweynaha maslaxadiisa taa unbaa aniga muhiim noo ah iyada aan naloo doortay una dhaaranay una taagannahay ilaa inta xilkii aan naloo doortay ka dhiman insha allahna waa ku guulaysan doonaa Soomaalida kale ee dariska idinla madaxweyne badanaa waxay muddooyinka dambe aad uga shaqeeyeen inaad doonaysaan inaad hirgelisaan nidaam Puntland oo dawlad isu taagayso oo kale aadna hadda waxaa loo hadlayaa inaad calan cusub iyo national anthem cusub aad samaynaysaan arrimaha noocaas istiraatiijig ahaan reer Puntland maxay u soo kordhinayaan in calan midab kale leh ay maanta yagleelaan waxa weeye horta dhibaato waxaa ah dadka Soomaaliya inay dawladnimadiiba ilaaween iyo si badan maskaxda burburka oo kaga dhacay waxaan idhahnaa burburka dawladnimada kuma dhicin maskax burburna waa dhacay calanku calaamad waxa weeye entity-gii jiraba ama maamulkii jiraba uu leeyahay munishibooyinka lahaan jirin madina arki jirin wadaadada xataa waa leeyihiin xer calan sita weligeed soo mayna arag calanku waxa weeye entity-da jirtaba lagu aqoonsan laakiin calanka guud oo meel walba ka babanaya Puntland waa calankii Soomaaliyeed xidigta lahaa kaayagu wuxuu u taagan yahay Puntland kaliya
kii qarankana waa yaallaa labaduba waa noo jiraan haddii anagu maamul samaynan in aanu nalagu ammaano nalagu dhiiriyo baanu dadka Soomaaliyeed ku leeyahay nalaga daydo annaguna waxaan u taagan inaan dhiiri gelino meel kasta Soomaaliya maamul laga samaynayo level kasta ahaade taas way siyaasadda iyadu dawladda caalamka waanu sheegnay meel kasta ba joogeen degmaha haday tahay waa dhiiri gelinayna haday gobol tahay waa dhiiri gelinayna haday state tahay waa dhiiri gelinayna haday tahay dawladda federaalka in la dhameystiro waa dhiiri gelinayna wixii Soomaaliya dib loogu soo celin karo in maamul shaqeeyo oo institution building wax loo yaqaano baa anagu u taaganahay taas aanu laga balantay targetka yar waa ka dalkiina dib la isugu soo cesho oo nusan cidna gooni u goosan miyay jirtaa marnaba inaad ku fakaraysaan halka maamulka dariskeeda la Soomaaliland oo kale ay ku fakarayaan inaad gaadhaan idinku soo ku fakareen Puntland Soomaaliland baa waxaan ku haysanaa inay tagino aan leenahay warkaalay aqligu muxuu ahay saliimka ha shaqeeyo niman siyaasiyiin iyo xuduudka in ka saareen Soomaali ma kala maaranto hal unit bay ahayd haddii wax jireen oo dhibaato dhacday maamuladii hore arintaas qabiil kuma dhicin walba khasaaro gaar wixii ka dhacay koonfur ama xamar ka dhacay oo magaaladii dadkoo dhan wada deganaa baa meel walba ka xun haddii wax gaari ay gaareen waaba wax gaar inay gaareen oo degaan aan aqaan weeye ruuxa waa laga hadli doonaayo ciddii markaas wax gaar ay gaareen cid kastaba ha ahaateena de gooni baa loo tixgelin doonaayo dalka ha kala goonin isu imaado waxaan ku kalsoonahay maanta waqtiga xaadirka dad badan oo kamid ah dadka reer Soomaaliya inay arinta garowsan yihiin siyaasiyiintu waxay la tahay dana gaar ay kala leeyihiin oo midba waxbuu ku shaqeeyaa taas aan waxba ka oran maayo dheeraad gobolladan la isku yiraahdo Sool iyo Sanaag iyo Cayn dhawaan buuro wadan degmada la yiraahdo waxba ka socday shirar baa ka socday idinka Puntland ahaan seed u arkayseen dhaqdhaqaaqa halka ka socda horta Puntland Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa Puntland taashaka kuma jiro wax badan baa maraka ah the reality on the ground xaqiiqda dhulka taalaba ka ah xagee reer Sool iyo Sanaag degan siyaasiyiintoodii ganacsatadoodii interactionkoodii odayaashoodii dhaqan xagee bay joogaan ma joogaan Hargeysa iyo Burco waxay joogaan Boosaaso iyo Garowe joogaan that's a fact on the ground cid walbana ay og tahay waxaa jiray qabsashada laascaano oo iyo dhowr tuulo oo ka shisheeya oo dhacay 2 sano muddo 2007 dhacay arin aad looga xumaaday oo dhibaato weyn gaarsiisay dadkii deegaankaas ku noolaa oo waliba maxaystii iyo ragii waaweyn ay wixii qiimo lahaa oo madaxoodu muuqday ama siyaasiyiin ama dhaqan ahaa iyagu kaba tagay laakiin dadweynihii iyo haweenkii iyo caruurtii waxaa jira dhibaato ciidamo ay u geysteen meesha degan arintaasna wax Soomaali kala qabta ma wax taariikhda Soomaali hadhow mustaqbalka u xun weeye waan u sheegnay dawladda dariska Soomaali inta waxeeda ay ku kala baxayso ciidamadaas inay magaalada ka baxaan oo ay tagaan xuduudka deegaankoodii ay ka yimaadeen ayaan ugu baaqnay odayaasha meesha isugu jiray badidoodu arintaas bay ka murmaayeen oo ay ka xanaaqsanaayeen oo aad iyo aad uga murugeysnaayeen inay sii socon waxaan ka qabtaa hase yeeshee waa ku jireen rag iyagu ula jeedo kale leh oo maamul dhexe ka raadinaya meesha laakiin kuwaas waa ku hungoobeen waxba uga naas cadaan rag kooban bay ahaayeen aan badna fikirkaasi marka waa mid aan shaqayn karin oo aan ahayn wixii Puntland lagu dhisay wax ka bedelana aakhirkii heshiis baa dhacay ismaduna ay saxeexeen idinkuna aad saxeexdeen oo wasiirka arrimaha gudaha saxeexay heshiiskaas makii soo afjari lahaaba haddii la dhaqan geliyo arrimaha Sool inta badan soo jiray waxyaalaha isku qaldamay waxaa ka mid ah doorkii isimada iyo madax dhaqameedka iyo kii dawladda burburkii baana keenay markii la wada hadlay waxaa la garowsaday in dawladuna ay door leedahay madax dhaqameedkuna door leeyahay labadii door baa lagu kala haday kaas baana la qiray kaasna la isla saxeexay kaasna lagu shaqeyn doonaa mustaqbalka kiini maxaad ka hormariseen doorkiina anaga doorka iyagu ma aha mid maaragtay isu tilmaamayso door dawladeed waa la yaqaanaa wuxuu yahay halka u dambaysa madaxweyne adigoo aad u mahadsan kelmadaada aad u jeedinaysid ummadda Soomaaliyeed iyo reer Puntland gaar ahaan marka ugu horeeya waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxay la tahay maanta meeshii ku joogtana cidna loo sheegay cid aan dhibaatada Soomaaliyeed ayeen gaarin ma jiro cid kasta waa shidada bilowday dabkii shaydaan shida waxa la muslim baa ku gubta maanta hadii shalay rag xukun doonaya oo ciidamo u badan baa garoonkooda ay dhibaato geysteen oo dalkii ay baabiyeen 20 sano ka bacdi sakaraadkii meeshu gaaray ninna kama maqna ha loo kala badnaado qoloba mar ha gaaro cid ka badbaadina ma jirto haddii maalin qolo islahayd idinka guul wada maanta cid guul wada ma jirto Soomaalidu
waxaan maqli jiray waxay heshiisaa markii dabka wada gaarayo culaysku maanta culayskiina wada gaariye dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dibi ahaantoodaba nin waliba inuu guntiga dhiisha isaga dhigo oo ka shaqeeya ummadda Soomaaliyeed nabad lagu soo dabaalo waxba tarimayaan waxaan si qayb samayo oo hadda meel baa Soomaalida cul ka gala mar ciidamo ka galay iyo milishooyin hadda wuxuu ka galay culimo wax kala jiidanaysa culimada waxaan ugu dawaaqayaa inay laabaan fikriyada kala ah xaq jirnimada oo nin walba uu leeyahay kayga xaq oo kan kala oo eedeynayo in dadkii Soomaaliyeed la dejiyo geediga in la isugu yimaado nabad in lagu wada heshiiyo anagu dhowr jeer baan ku baaqnay in Puntland aanu dadka isugu yeero wixii leh ajenda siyaasadeed in la heshiiyo aan dib looga noqonayn waayadii hore warlordka loo yeeri jiray warlordkiisa waa dhamaaday maanta dadka madaxda Soomaaliya hadda ka dad waxay u badan yihiin wada civilian ama dad aan iyagu background ciidan lahayn ciidamadu roolkoodii waxay la tahay la soo arag wixii ay lahaayeen wali waa loo ogol yahay oo nabadgelyada dalka inay sugaan ka qayb qaataan inay inta ku ekaadaan wadaadaduna yay warlord cusub bay hadda noqdeen iyaguna ay noqon wax muxuu ahay ummadii Soomaaliyeed u jiida inay ka cararaan diintooda islaamka ah in loo arko inay shido ka tib xageedii ummadii ay wareerto waxaan ugu daaqayaa Soomaaliya oo dhan wixii maamul dhisi kara meel kasta waa hada level kasta inay dhisaan in dadkan colaada laga joojiyo ummadda la leeyahay xaqdarada lagu leenayo oo ninba meel loo cuskanayo aan ahayn wax sax ah in la joojiyo la isuna yimaado dalkii Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu ka soo celiyo isagoo magaciisa adduunyada kule dadkuna qaxootiga ka soo wada noqdo isugu soo noqdo dalkiisa aad baa mahadsan